السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. marka ugu horeysa waan salaamayaa dhammaan dadka daawanaya meel kastoo aad joogtaan. Waxaan jeclaystay inaan halkan maanta ciyaarta kula wadaago maanso la magac baxday duq iyo wiil baa dacwiyey. maansadani ma cusba, waa 23 jir oo sanadkii 2000 bishii 12 baan faafiyey markii koowaad. marar badanna munaasabado kala duwan baan ku duubay. waxaanay ka hadlaysaa ama la hadlaysaa dadka doonaya inay ummadda hanuuniyaan oo waxay qaladaada ka qabtaan oo ay maaragtay abaabulaan oo dhinaca wanaagsan had iyo jeer ku abaabulaan. waxaanay hoga tusaaleynaysaa fahanka duruufaha sida gaarkaa bulshada u haysta, gaar ahaan dadka qurbaha la joogo. dhegeysi wanaagsan. ducoy kaa baaqan maayo, dikriyow kuma baajinayo, danay marna kaama weyni, inaan daa'imow ku tuugo, anay ku jirtaa dantaydu. daciifnimo aadmi baanay, inaan adi kaa dudaayi, anay doqonnimo iita. allow ruuxii dayaysan, adaa dejintii awooda. allow nin dartaa u rooray, haseejin dariiqa toosan. allow dadkii way murmeene, adigu noo door jidkaaga. intaa murti dooxideed dheh, daboolka ka qaadidii dheh, ku sii darso oo araarta nin duunyadii eed ma waayo. faqiir dayacnaan ma waayo, dalkiisa ninkii halleeyey dulsaar kama baaqsanayo. ninkii darajiye xil qaaday ammaan dad ma haybsanayo. waxay dood qorani leeday durbaanna garaacidooda. hadduu damacaa ku siiyo inaad harka galay dariiqa, dadow imaqlaay tidhaahdo, waxaad ku dartaa xisaabta inay daba taal ilaaqa. adaa dalbadee dhibkeeda, wixii deelqaaf ku gaadha dulqaadashadeed lahaa. waxaan hadalkaa dahsoon u duurxulayoon u daday, ninkii dacwad faafinteeda dad uga baxee isdooray, inaanu dariiqa moodin kob ay derin raaxa taallo. dad iyo raran baa ku duugan, dusheeda qodxaa ku daadsan. adoo dikrigiiyo qur-aanka ku fogan daryeelidooda, waxaad ku dartaa xisaabta dacaayad lagu sameeyo, dijaal in lagu nisbeeyo, danayste lagugu yeedho. adoo xil dushaada saaray, dadaalay intii karaana, dantaada ninkaad u xoortay hadduu kugu sheego daalin, inaad u duddaa sax maaha, inaad u ducayso wey. sidaa diintaa tilmaantay, hadduu sida debadgaleenka ka dido dawgaad marayso, inaad daba orodo weeye. haddaad tahay ruux damiir leh, jidhkiisu dubaaxinayo, in uun shicib kaa darleefay, dalgaalo u soo hijrooday, ka dirnixi waayahooda, inaad dubyarayso maaha, dantaada ka raacda maaha, inaad daba qabato wey. aaway da'yartii kacaysay, aaway dumarkiiyo carruurtii, kuwaa dihatiya dhashaadu, kuway dayan laydi meeday. bal eeg dacallada, bal eega iskooyadan loo dareeray, sigaarkan la daaligaayo, khamrigan la durduuranayo, daroogadan lagu qubaystay. haddaad ku dadaali weydo, darmaad ku hadlaynaysaan. hablahan gurigooda diiday, jirkoodii dabooli waayey,
xayaha doqonnimo mooday xumaha darajooyin mooday haddaad ku dadaali weydo dariiqa ku toosin weydo darmaad ku hadlaynaysaan aroosyadan lagu dambaabay fisqigan loo dadabgelayay halkii la ducaysan lahaa durbaanlaha loo kiraystay haddaad ku dadaali weydo wacdiga la dul joogi weydo jid kale u dilaacin weydo darmaad ku hadlaynaysaan waqtigaana waan qabay ilaa imakana waan qabaa runtii in barnaamijka inta badan isdiidooyin baa ka yimaada barnaamijyada wixii madadaalo iyo murti la xiriira ee bulshadu ay samaynayso iyo dabaaldegyada iyo xafladaha oo inta badan habkii diiniga iyo diinta waafaqsanayd ee raalliga dhaqanka ku ahaa lama sameeyo marka inta badan waxa ismaandhaaf baa ka yimaada iyo farxaddii inay kala dhantaalanto laakiin inta badan waxaa arrintaa keena iyadoo oo aan badiilkii la doonayay loo fikirin oo aan la diyaarin adduunyada kale waxay waafajiyaan tubta ay ummaddu marayso ay qiimkooda iyo dhaqankooda waafajiyaan marka ujeedadu halkaasay daaran tahayo in barnaamijyo wanaagsan oo munaasib ku ah dhaqamada wanaagsan loo sameeyo waxaa dhacday aroosyada waayadii hore gobol lagu jaaso oo lagu niikiyo oo ayay noqdeen oo fisqi badani ka dhaco waxa haliska daayaa la yidhi lama wada daynay intii daysina barnaamij markii ay waayeen wuxuunbay noqotay inay qabyaalad ka buraanburaan marka waxay leedahay maansadu aroosyadan lagu dambaabay fisqigan loo dadabgalayo halkii la ducaysan lahaa dikriga lagu hoysan lahaa durbaanlaha loo kiraystay haddaad ku dadaali weydo wacdiga la dul joogi weydo jid kale u dilaacin weydo darmaad ku hadlaynaysaan guryahan dumeeye dumaya dalaaqan istaagi waayey carruurtan sidii dugaaga dhammaan dabeedaha u yaacday aslan 20 sano ka hor 20 sano ka hor qurbaha aad buu furiinku ugu badnaa waxaanay dadkaas ahayn dadkii facii hore iyaga oo waaweyn yimi ayaa dee markaa joogay laakiin hadda waxaa kasii daran generationka ama faca dambe ee hagan ku dhashay ama qurbaha iyagoo yaradii soo galay oo reera yeeshay iyagoo u dhow kamay fiicnaanin arrintii marka inuu waqtigaas marka ku baraarujinaya dadku inay u diyaar garoobaan oo tusaale ahaan wax laga bedelo waxaan dalaaqan iyo kala yaacan faraha badan waxa keenaya mu'asasadan la dhisayo iyo contractigan iyo heshiiskan iyo caqadkan la saxeexayo ayaa wuxuu u baahan yahay in la barto oo koorsooyin loo garo oo loo diyaar garoobo marka ugu horeysa si iyadoon la gelin oo baahidii bini'aadamka oo quri ku wado ayaa jablays odhanaya dadana baahiyaha kalea ka hor imanaya waxbaa isku dhacaya marka guryahan dumaya dalaaqan istaagi waayey carruurtan sidii dugaaga dhammaan dabeedaha u yaacday carruurta nin diin yaqaanay ka daagdejin waayo waano baldhaaf dugsi ay tagaan inay didayaan la moodo haddaad ku dadaali weydo dantaada u seegi weydo adaa dambarkooda maalin kuwaa dihatiyo dhashaada kuwaa dunida u horseeday ayaa dan u raaci doona bus carruurta waxay raacayaan un bulshada waayo ilmuhu wuxuu yahay odow la koro intaasi ninkaani deeqin daliil waxa ugu filan war daalacanu la degay ku daabacan waaqiceenna wixiyo waanana u badan oo ay dulucdiisu leeday duqiyo wiil baa dacwiyey ka dooday amuuro badan duqani waa awdardaan dagaaladu waayaday dalkeenna ragaadiyeen ayuu damiciisu faray da'dii keliya isaga deeqdiisa ilaah ku siiyey da'diisu intay yar tahay inuu la doonto deegaan nabdoon duulaan iyo buuq lahayn darleef iyo gaajo og dadaalkaas aan yarayn kumuu xilin daa'inkii galbeed durduruu ku yimi deegaan nabaduu ka helay darleef iyo gaajo reeb ha yeeshee docdii kala daleelii ka soo baxdo yarkuu la dadaalayaa abuuray dareemo kale maxaa dareemadaas yihiin danseegnimo kow ka tahay rafiiq xumu door u tahay waxaa odaygii dardaan dadow iyo diid ku riday yarkii nabadow saxsana afkiisu ma daahirsana ishiisu ma daadegsan dharkiisu hidii dadkeenna dariiqal islaamigii malaha diibkii saxnaa dugsiga waa loo diraa qur-aanna duxaa mar qura
kor ugama sii dallaco waayadii hore saasaabay ahayd oo way adkayd beelmihii unbaa macnaa aan maaragtay jiscamaba aan dhammaynahay intaa lagu dadaalay intaana dhibaatada dad badan bay haysataa duqii dibidiyo wax sheeg dardaaran wuxuu ku yidhi aabbow duco iga shaqayso aabbow dhaqankii ha doori aabbow diintii ha seegi aabbow tacabkay ha duugi aabbow hadalkaaga dooran ka fiirsa intaanu duulin maryaha dusha aad ku qaadan habkaa dadka ula dhaqmayso ka eega daliiladeena ha raacin dariiqii leexsan waa waanidii aabbahana awdardaan baa la ydhahdaa waa adiga wuxuu wiilkii ku dooday dardaanow aabbahay dariiqa haddaan ka leexdo aniga dembigeyga maaha markaad dagalgaali keentay nin diiday abuurta eebbe markaa daris igala yeeshay adaan samahayga duulin inaan jidka diinta seego adaa danu sii qushay bal eeg dariskeenna aabbe bal eeg waxaan dadin la qoolay bal eeg waxaa laac la daadshay bal eeg da'yartoodan qooqan bal eeg dumarkoodan qaawan dardaan maanaa cagtayda ku doontay ayaad leedahay maanaa halkan iskeenay soo adigu halkan imaad keenay ilmuhuna iyo qof walibana bulshada uu ku dhex koro ayuunbaa bulshadiisii ah ula dhaqan noqonaya wuxuu duqi ugu jawaabay anigu xumo kulama doonin anigu inaad diinta seegto marnaba kama doonin laabta anigii duqda hooyadaaya waxaa darajiya xil noo ah waxaa indha doogsi noo ah waxaa dahab nooga fiican adoo xaq ku daafiraya aabbow dembi hay samayn haddaan degalgaalku keenay adaan ka fekeray dantaada adaan dulli kaa badbaadshay adaan webiyada dushooda dartaa uga soo tallaaba dalkeenni markuu burburay umla doox baa ka dhacay markaas waxaan islahaa dagaaladu way dhammaanayaan waa labadii baa la marayaa dagaaladii waa laga baxaya markaa taariikh buu uga sheekeynaya laakiin kuwii dhashay hadda taariikh kale arkayaan dalkeenni markuu burburay umla doox baa ka dhacay wax daran baa nagu habsaday nin dunyeela uuma hadhin wuxuu ku dabera naftiisa waxaase intaa ka daran da'daada ilmii ahaa barbaa dirirtii ku go'ay ku le'day dagaaladii kuwii dabayaaqi haray darxumo gaajaa u dheer iskuul marna laguma darin wiilkii odaygiiba intaa marka dhibaatadaasan kaasoo badbaadiyey buu jeeda wuxuu wiilkii ku dooday adiga duqda hooyaday dadaal marna maydu muujin dabbaal anigoon aqoonin ayaad badda doodinaysa intaad idhigteen dusheeda dhahdeen biyahaas habaari hadduuse i qaato daadku aniga dembigeyga maaha oo duqi ugu jawaabay aabbow dembi aanan geysan aniga dusha hayga saari sidaanan dadaal u muujin anoo kugu daray iskuulka miyaanan ku geyn dugsi miyaanan nin diin yaqaana duruus u dhigay ku odhan wuxuu wiilkii ku dooday inaad dugsiyada igeysin anigu doodnaan ka keenin ha yeeshee waxaa dareen leh adoon diinkaba aqoonin intaad ani ii dirayso waxaanad u doonanaynin adigu maxaad horta u dhigooni hadday wax fiican tahay barigohan usomaad baran imakana maad baran maxaad aniga qura ii diraysa adigu maad bare waa adigan afkii waddanka u tima barta iyo dhaqankiisii wax kasta miyay dadka suuro tahay inay dahab yaal duleedka cid kale doontaay dhahaan miyay dadka suuro tahay adoo oon dibin jajabay oo haraadan inaad biyo dabaqabsiya durduura cid kala tira dannaa igu jira dardaan oon shakisanahay dannaa igu jira dardaan dugsigan aad qaba i tiri inuu kaa daacadiyo armaad leedahay waqtiga aad ka yara nafistood ka seexata sadeexad duqii dawaq baa ku dhacay bayaan madaxuu qabsaday ibnaha ciil buu la cunay jirtoo dihnigiisu garay in doodan yarkii ka helay wuxuu yaro diidan yahay siduu u ilduufsanaa jirtoo dihnigiisu qiray in doodan yarkii ka helay wuxuu yaro diidan yahay siduu u ilduufsanaa dib buu ula shiray naftiisa wuxuu yidhi daalayey da'day ku khasaarayey haddaan cunugii dushayda ka beermay buxdii jidhkayga hadeerta difaaci waayey uu doobta iga helay maxaan berri yowmudiinka
markuu dadku qaawan yahay naftayda ku daafaca allaa daa'ino hortiisa diiwaanka markii la furo maxaan isku daafaca nafsadaas waxaa la yidhaahdaa duqiyo wiilbaa dacwooyin halkaasaan ku joogteena insha allah